Bismillahirrahmanirrahiim. Habeen wanaagsan daawadayaal, halkani waa channelka wararka ee Somali News. ku soo dhawaada tabinteena qodobada ugu waaweyn waxaa qaybka guddiga doorashooyinka heer federaal oo maanta doortay gudoomiye cusub kadib loolan adag oo loo galay doorashadaasi. Rooble iyo Dani oo dharbaxyo siyaasadeed ku dhuftay isbahaysiga farmaajo mucaaradka iyo lafta gareen. Sababtu maxay tahay? Halkan ayaa idin kula wadaagi doonaa. maamulka gobolka Banaadir oo ku dhawaaqay go'aan uga sii dari kara xiisada ka taagan magaalada Muqdisho iyo arrin lama filaan ah oo ka dhawaajiyay iyo banaanbaxayaal xooggan oo maalmaha soo socota Muqdisho ka dhici doona iyo guddiga qabanqaabinaya oo warbaahinta la hadlay. qodobada iyo qodobo kale ayaan ku faahfaahi doonaa tabinteena habeenimo oo diyaar garooba daawadayaal. mar kale kulan wanaagsan waa 15 January 2022 ku soo dhawaada qodobada aad maqasheen iyo kuwa kale oo ay faahfaahsan. haddii ayna ku bilowno Muuse Geelle Yuusuf ayaa ku guuleystay doorashada gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal oo maanta ka dhacday magaalada Muqdisho. Muuse Geelle ayaa helay 17 cod halka musharaxii kale ee la tartamayay Cabdixakiin Cabdicasiis Aadan uu helay 11 cod kadib loolan maalmihii dambe socdo. Muuse Geelle ayaa guddigan ka soo galay dhanka Puntland waxaana taageero uu ka helay xafiiska ra'iisul wasaare iyo sidoo kale xubnaha guddiga oo laga soo galay dhanka Puntland iyo Jubaland. musharax Cabdixakiin ayaa isna taageero ka haystay dhanka madaxtooyada iyo sidoo kale maamulada taabacsan sida Koonfur Galbeed, waxaana sidoo kale taageeraya qaar ka mid ah midowga musharaxiinta balse waa laga guuleystay. waxay ahayd markii ugu horeysay oo musharaxiinta ay ku kala aragti duwanaadaan doorashada gudoomiyaha guddiga, iyadoo haatan laba dhinac ay u kala jabeen doorashadan oo qaarkood ay ku aragti hayeen filla Soomaaliya. musharaxiinta qaarkood waxay diidanayeen in Muuse Geelle aad ugu dhow yahay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo doorashada ku soo baxo. gudoomiyaha hore ee guddiga doorashooyinka Maxamed Xasan Cirre ayaa xilka laga qaaday 25 December ee sanadkii aynu soo dhaafnay kadib markii lagu eedeeyay inuusan dhexdhexaad ka ahayn arrimaha doorashooyinka kuna xiran yahay filla Soomaaliya. doorashada Muuse Geelle gudoomiyaha cusub ee guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa guul weyn u soo hooyay ra'iisul wasaare Rooble iyo dhinacyada taageersan kana adkaada farmaajo, isagoona guddiga doorashooyinka si buuxda gacanta filla Soomaaliya haatan uga baxay. doorashada dalka ayaana xilligan looga baahan yahay in ay dardargeliyaan guddiga doorashooyinka. gudoomiyaha maanta la doortay cusub ayaana shaqo badan hortaala maadaama dhawaan golihii wadatashiga qaranka shirka Muqdisho ay ku soo gabangabeeyeen ballantu ahayd maanta inay toos u bilaabato doorashada. ma jirto doorasho maanta oo bilow u ahayd meel ay ka bilaabatay dalka, balse rajo weyn ayaa la qabaa in maalmaha soo socda maamulada qaar iyo sidoo kale magaalada Muqdisho ay doorashada xildhibaanada golaha shacabka si toos uga bilaabato 45 cisho oo loo mudeeyay in lagu soo gabangabeeyo. qaar ka mid ah dowladaha taageera Soomaaliyana sheegay hadiisan dhaqan gelin arrinkaasi iyo waqtiga ay madaxda ku heshiiyeen Soomaaliyeed oo doorashada lagu soo gabangabeyn inay qaadi doonaan tilaabo ku haboon. waxaa qayb ka Mareykanka oo tiro dhowr jeer ku goodiyay inay tilaabo adag ka qaadi doonaan madaxda Soomaalida, waa sida hadalka u dhigeen. dhanka kale Rooble iyo Siciid Dani madaxweynaha Puntland ayaa dharbaxyo siyaasadeed ku dhuftay isbahaysiga farmaajo mucaaradka qaar ka mid ah iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed lafta gareen. maanta oo magaalada Muqdisho ay ka dhacday doorashada guddiga doorashooyinka heer federaal oo ka koobnaa 25 xubnood kuwaas oo gudoomiye cusub u doortay Muuse Geelle Yuusuf kadib markii xilka qaadis lagu sameeyay gudoomiyihii hore ee Maxamed Xasan Cirre. doorashada maanta waxaa ka soo ifbaxday xulafooyin siyaasadood oo aan la filanayn, iyadoona ay isku dhinac noqdeen kooxo aan hore isugu dhaweyn halka kuwa saaxiib ahaana ay ku kala tageen. guddoonka doorashada oo mid muhiim u ah doorashada Soomaaliya oo ku loolabeen laba musharax oo taageero ka kala helayay dhinacyada siyaasadda Soomaaliya si gaar ah farmaajo Rooble ayaa mid ka mid ah maanta u guuleystay oo dhinaca Rooble ka socday. doorashadan waxay ahayd markii ugu horeysay oo xulufo oo ka dhigta farmaajo qaar ka mid ah mucaaradka midowga musharaxiinta qaybka iyo madaxda maamul goboleedyada halka ra'iisul wasaare Rooble iyo Siciid Danina ay dhinac noqdeen. Muuse Yuusuf Geelle oo guddiga ka soo galay dhanka Puntland waxa uu taageero xooggan ka helay xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo sidoo kale Siciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Puntland. musharaxii la tartamaya Cabdixakiin Cabdicasiis ayaana taageero dhankiisa ka helaya madaxtooyada Soomaaliya, midowga musharaxiinta qaybka iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. ugu dambeyntii waxaa tartanka ku guuleystay Muuse Yuusuf oo ah musharax ay wateen Rooble iyo sidoo kale Siciid Dani madaxweynaha Puntland oo 14 cod kaga adkaaday musharaxii kale. midowga musharaxiinta qaar ayaa la sheegay in maanta madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhamaada farmaajo ay kula safnaayeen sida u soo saari lahaayeen Cabdixakiin Cabdicasiis Aadan oo dhanka filla Soomaaliya ka socday, kuwaas oo doorashada maanta ku soo baxay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka midowga musharaxiinta qayb ka mid ah ay ka soo horjeedeen
Muuse Yuusuf Geelle. Si kastaba ha ahaatee guuldarrada soo gaarta Villa Soomaaliya iyo xulafadeeda ayaa ka dhigay in maamulka guddiga doorashooyinka heer federaal uu la wareego Rooble iyo sidoo kale Deni isku dhinac ah isagoona xoogga isugu geynaya sida doorasho uu saameyn ku leeyahay Rooble ay dalka uga dhici lahayd maadaama tiro dhowr jeer cabasho xooggan uu ka muujiyay madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sheegay in caqabad uu ku yahay doorashada laga dhaqaajilay haatanna oo ka dhaxeeya khilaaf xooggan oo meeshii ugu sarreeya maraya Rooble iyo Farmaajo. Maamulka gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqay in amniga gobolka Banaadir ay mas'uul ka yihiin go'aankaas oo kaga sii dari kara xiisadda haatan ka taagan magaalada Muqdisho. Maamulka gobolka Banaadir oo haatan xiisad xooggan ay kala dhaxayso xukuumadda Rooble oo hogaamiyo ayaa gaar ahaan wasaaradda amniga ayaa ku dhawaaqay go'aan kale oo uga sii dari kara xiisadda haatan ka taagan dalka si gaar ah Muqdisho. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cali Yare Cali oo shir jiraayad u qabtay warbaahinta ayaa sheegay in aysan ahayn in maamulka gobolka Banaadir hadda kadib lagula tacaamuli doonin arrimaha magaalada Muqdisho gaar ahaan amnigeeda. Cali Yare Cali ayaa si toos ah weerar ugu qaaday xukuumadda Rooble isagoona tilmaamay inta lagu guda jiro doorashada in maamulka gobolka Banaadir uu madax bannaan yahay talada amniga. Inta doorasho lagu jiro maamulka gobolka Banaadir waxa uu madax bannaan yahay taladiisa siyaasadda amniga ma jiro qof kale oo arrintaas amniga ku saabsan lagala tashanayo markaas ayuu yiri Cali Yare Cali. Sidoo kale waxa uu intaas ku daray waxaan u simanahay wasaaradda amniga sida gobolada kale ee Soomaaliyeed haddii warqadaha wasaaradda amniga aysan ka socon karin Boosaaso Dhuusamareeb Jowhar Baydhabo ma jirto culays gaar ah oo saaraya maamulka gobolka Banaadir ayuu yiri gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir. Dhinaca kale waxa uu soo dhaweeyay go'aankii ka soo baxay odayaasha dhaqanka ee dib loogu dhigay dibadbixii ka dhanka ah ee laga soo horjeeday afgambigii madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhamaaday wuxuuna sheegay in mas'uul ahaan ay ka tahay sababta ay u diideen amniga caasimadda darteed banaanbaxaasi walow guddiga qabanqaabinaya ay sheegeen maalmaha soo socda lagu dhigi doono caasimadda dalka banaanbaxaasi. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo muddooyinka ugu dambeeyay hadallo kulul oo warbaahinta isku marinayeen madaxda gobolka Banaadir iyo wasaaradda amniga oo hore u shaacisay inay fasaxday dibadbaxa nabadeed oo haatan mar kale Muqdisho ka dhici doono. Si kastaba ha ahaatee hadduu sii socdo dagaalkan siyaasadeed ayaa saameyn kara amniga caasimadda iyo wada shaqaynta xukuumadda iyo gobolka Banaadir oo waayihii dambeba ku xorneyd Villa Soomaaliya oo madaxweyne Farmaajo Rooblena khilaaf xooggan uu ka dhaxeeyo taasoo mugdi badan sii gelinaysa wada shaqaynta maamulka gobolka Banaadir iyo xukuumadda ra'iisul wasaare Rooble oo muddooyinkii dambeba khilaaf xooggan uu ka dhaxeeyay. Cali Yare Cali gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir oo bartiisa Facebook si gaar ah waayihii dambe weerar culus ugu qaadaya xukuumadda ra'iisul wasaare Rooble ayaana sheegay in amniga gobolka Banaadir ay ka looga dambeyn doono jirin cid ay kala tashanayaan wixii ku quseeyo caasimadana loo hoos fariisan doono maamulka gobolka Banaadir inta lagu guda jiro doorashada dalka. Dhinaca kale guddiga hore u qabanqaabinaya banaanbixi dhawaan lagu waday in magaalada Muqdisho ka dhacaya mar kale shaaciyay in caasimadda ay ka dhici doonto maalmaha soo socda banaanbaxaasi oo laga soo horjeeda madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhamaaday. Siyaasiyiin duubabka dhaqanka magaalada Muqdisho ayaa horey guddigaasi uga codsaday in maalmo ay dib u dhigaan banaanbaxaasi maadaama xaaladda dalka haatan degan tahay waxaana guddiga qabanqaabinaya oo ay la magac baxay golaha Banaadir ay sheegeen in banaanbaxu yahay mid nabadeed isla markaana looga soo horjeedo tilaabooyinka waayihii dambe qaadaya madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inkastoo xisud midantay in maamulka gobolka Banaadir uu tiro dhowr jeer ku celceliyay in banaanbax aysan amar uga haysan maamulka gobolka Banaadir dadka isku dayay in Muqdisho ay ka qabtaan ay ka dhaxli doonaan tilaabooyin aysan mahadin balse wasaaradda amniga ayaa dhankeeda ku amartay taliyaasha ciidamada booliska gobolka Banaadir in ay qayb ka qaataan sugitaanka amniga dadka shacabka ah iyo mas'uuliyiinta banaanbaxaasi dhigaya Farmaajo looga soo horjeedo. waxaana jira khilaafka xooggan oo haatan ka dhex taagan maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale xukuumadda ra'iisul wasaare Rooble si gaar ah wasaaradda amniga ee hogaamiyo wasiir Cabdullaahi Maxamed Nuur. guddiga qabanqaabinaya banaanbaxaas ayaa sheegay in shacabka degmooyinka gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiin badan ay ka soo qayb gali doonaan banaanbaxaasi laguna dhigi doono goobaha fagaaraha ee caasimadda dalka loogana soo horjeeda tilaabooyinka waayihii dambe uu qaadaya Farmaajo iyo sidoo kale afgambigii 27 Diseembar sanadkii hore ee soo dhaafnay bishii u dambeysay. inta ayaan ku soo gabagabanaynaa daawadayaal tabinteena habeen aad kala socoteen channelka wararka ee Somali News mid lamid ah inta kulmi doona qiyaaray nabadgelyo.